وحاضر خدك ستة وساعة وجرو دكتور إبراهيم معلم موسى إسأل ينقول الجنينة دكتور وحوكسو الله يا ودن كهولن أما نذرلاند دكتور إبراهيم أدونا مقلاي وحنقول الجنينة ميكروفونك وحاسيب توسع كود داون دون أما كود رئيس دونه odayaasha marti sharafta ka soo booqatay wadamo dhowr ah aan la soo koobi karin barnaamijkan qabashadiisa iyo suurtagelintiisa waxaa iska leh midowga afkaarta dhalinyarada jaziira ee wadanka Sweden Dictore soo dhow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد سيدا ماشي أدوية جوكتان من كسو هذا موقن كل جينا وعد وذا السلامة اللي يرى مدوغ أفكار جسيرة وحفلة دان إيو كلن كان أهل كأه قلة الرحم كأه وأباب شيء انتي كوكا الميسي انتي كسو قيب كشي كل بودوحان إلهي أغبرينا إن أجر أكسيو سان أي سوقادين صلة الرحم أما رحمك أول حريريو أما إليك أول عيد تاسو صدقوا نرشا إلهي إنه إثمري إن أدوك أن كتوبنا waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay waxaan ogahay waqti badan inuu naga dhumay hadalladeena inaan soo gaabiyo ayaan jeclahay marka waxaan ku bilaabi lahaa wixii barnaamija horta idinka ayaa idin gaarayahay odayaasha doorkooda kulley wuxuu noqon karaa waxyaabihii la soo dhaafay inay wax ka ifiyaan laakiin dhalinyarada ayaa loo baahan yahay afkaarta cusub inay ka hirgeliyaan odayaashana wixii talo ah inay siiyaan waxaan rajaynayaa in la imaqlayo ما شاء الله maadaama anaga maaragtay jasiira ama reer jasiir ama shaqaal jasiir wixii rabtid ku magacow waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso inaan ogaano identity-ga aan leenahay waxa aan nahay inaan ogaano ayaa loo baahan yahay taariikh dheer oo fog hadda ma geli karo waqtiga ayaan diidaya laakiin waxaan idin sheegayaa inaad tihiin dad fac weyn oo ka soo jeedo dad fac weyn reer jasiira marka aan soo koobo waxay ka mid ahaayeen dadkii dagaaladii xabashida la galay si diinta islaamka Soomaaliya ay ugu nagaato oo wax ka dhisay
dowladihii islaamiga ahaa ee horeeyey oo ka dhismeen awdal iyo zaylac ay dhulkaas ka dhismeen. reer jasiira weligooda yani ujeeddadooda waxay ahayd inay diinta islaamka firiyaan. ahlulcilmi ayay ahaayeen, tabliiq ayay ku jireen. markii ingiriiska uu soo weeraray ciidamadii daraawiishta oo ay la dagaalayeen ingiriiska inuu dalka qabsado rabi sidii ay oo ka dhicinay ayay maaragtay reer jasiira jasiira inta ay ka soo dhoofeen ayay ka qayb galeen dagaalkii daraawiishta lala galay. waxay ku soo barbaareen marka halgan iyo waxay ku soo barbaareen afkaar dowladnimo iyo afkaar wadaninimo. waxay ka qayb galeen reer jasiira haddaan idiin sheego markii xeebahan iyo banaadirka ay yimideen oo ay ku nagaadeen waxay la dagaaleen oo dagaal xoog leh la galeen dowladihii cumaaniyiinta ahaa oo rabay xeebaha soomaaliya inay qabsadaan. haddii aan idin sheego xeebaha banaadir oo dhan xalnimadii dadka keenay iyaga waayo. daaraha waaweyn oo la dhisay iyaga ilbaxnimadooda lahaa. dagaalkii barqashi iyaga waxay uga baxeen magaalada muqdisho xamar loo yiqiin. waxay deganaayeen meesha la yidhaahdo masaajidka marawaas iyo agagaarkiisa ilaa dhulkaas ayagaa deganaa. laakiin markii dambe waxay dib ugu soo noqdeen deegaankoodii gaarka ahaa ayay u soo noqdeen. marka deegaankooda gaarka aan ku leeyahay waxaa weeye reer jasiira ka soo bilow marawaas ilaa jasiira ayay ahayd. meesha ceelgaab la yidhaahdo ceelka ka qodan oo laga qoday ayagaa qotay ama magac sheekhaal baa lagu qodo ilaa jasiira sidaas ay ku soo gaareen. kadib waxaa yimid dagaalkii talyaaniga oo lala galay. reer jasiira haddana waa ka qayb qaateen. talyaaniga waxay kula dirireen meesha la yidhaahdo lafoole. lafoole markay kula dirireen dad badanaa kaga dhintay, talyaanigan dad badanaa uga dhintay. markaasaa haddana xaruntooda oo dagaaleed waxay ka dhigteen meesha la yidhaahdo nimo ayagoo ka fakerayo inayna jasiira burburin. nimo waa taqaanin waa meel u dhow meesha la yidhaahdo jasiira. halkaas ayuu talyaaniga ku duqeeyey maraakiibtiisa ku duqaysay nimo oo ay deganaayeen reer jasiira. ugu dambeyntii reer jasiira waxay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay ceel xaaji oo uu hogaaminayay alxaaji maxamed nuur. dagaalkaas reer jasiira way ku dhammaadeen.